بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقت كوبان إن شاء الله تعالى بنسكو دايدونا إن نهضله موضوع كصابسن التزكية. في اللغة العربية كلمة التزكية لما معناه في عربي قصة أرورتاه أي علماء الشيغان معنى الزيادة والنماء، هي معنى الطهارة بين هذا شيء إنه طاهر نغضه أو حماه هي وحاصلنا لقريبه، هي إنه زيادة يكون عضو كره أما barakoobo haddaynu si kale u tilmaamno. halka kan culamaa suluuk waxay uga dan leeyihiin inta ugu badan leh waa nafta bini aadamka oo laga tahiro camaa yashuubuha, wixii fool xumaynayay qofka bini aadamkaa oo wixii naqaa'isa ama hoos u dhigayay ama liidayay ama fool xumaynayay ama waxyeelayay in laga maydho oo iska tahiro, iyo inuu xagga khayrka uu u koro oo ziyaado uu wado istiqaamada iyo toosnaantiisu ay korto ilaahay uu ka gaaraya bay yidhaahdaan darajatul ixsaan. sidaa awgeed culamaa suluuk markay masaladan sharxayaan waxay ku tilmaamaan laba eray oo kooban. waxay dhahdaan taskiyadu waxay samaysaa wax loo yaqaano altakhliya wataxliya. takhliyadu waa si aynu soo sheegnay nafta oo waxyaabaha xunxun laga dhowro ama laga nadiifiyo, oo waxyaabaha jira nafta bini aadamkaa hadday u weecato shar aada u badana sida xaasidnimada, riyaaga iyo istuska, kibirka iyo isla weynida, adduunya jacaylka iyo wixii la noocee radaa-il shareecada ay ku tilmaamtay. cagsigeeduna waxa weeyaan inuu qofku isku qurxiyo oo ku labisto libaasi taqwa, oo ah wixii ilaahay raalli ahaanshiyihiisa keenayay ama wixii fiicnaysiinayay dhaqanka isaga iyo alle u dhaxeeya iyo dhaqanka isaga iyo aadanaha u dhaxeeya. eraygan waxa ku macno dhow eraygan la yidhaahdo atarbiya. culamada badh isku macnay ka dhigaan. tarbiyadu waxay yidhahdaan waa nafto kamaalkeeda la gaadhsiiyo halka ay ugu sarraysa, laakiin fii nadari waxaan u malaynaya inay kala macno ballaadhan yihiin, waayo tarbiyada waxyaaba aan soo gelin taskiyadaa soo gala, maalan التربية العقلية والتربية الجسدية وكذا، لكن تسكيده انت بدن ووح نفطي النقل كيدي الروح دي أخلاقيات كيدا كوكوبا. علماء دبر وحي هذا التطهير أو التهذيب أي الله معناه، لكن وحلقا يابا إن يكون كمعنى قابين، وهي التطهير هو حق الدنس كي نجاسي وحا حنون لقم يروح، laakiin dhinaciina maaga iyo koritaanku kuma jiro. tahdiibkuna waa la mid, tanqiya mimaa yuciib bay yidhaahdaan, waa shaygoo laga safeeya wixii caabeynayay. soo duuduub oo erayga kan waxay culamaai nafsi markay ka warramayaan ay ku tilmaamaan, ama culamaai suluuk baan u jeedaa, wuxuu cagsi u yahay bay yidhahdaan atadsiya. tadsiyadu waa idkhaalu shayi fi shay أو تحت الشيء، شيء هذا حقه سكك جلسه أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب إلى المامي. مركي لقوا الرمي دو مركي أي حبل نولولين شرين نعيد كأس بالوت المامي. تتسيدنا ونفط أو وحي حقيري أما الليدي أما حمي هذا موتشيني أد كل قنصيصه. haddaba eraygan haddaynu intaa kusoo dhaafno macnihiisa guud ee la tilmaamayo si aynu u fahmno waxaynu u soconno o dhan. taskiyadu waa laba nooc bay idhaahdaan.
midii waa nooc fitriya waa abuurka ilaahay bila aadamka ku abuuray walaqad khalaqna alinsaana fi axsani taqwiim siiba inta uu caruurta yahay ee aanu waxweecadka baranin oo nebi muuse markuu khidir la hadlayay waa kii ku tilmaamayay aqatalta nafsan zakiya bigayri nafs waxaad dishay naf zakiya ah ay musakaata naf daahira naqaale aan dembi loo qorin ilaahay taqaano maskiinada ama malagu markuu maryam la hadlayay waa kii ku lahaa inamaa ana rasuulu rabbiki liahaba laki gulaaman zakiya taa ma hataynu inagu u soconnaa intaynu u soconnaa waxa weeyaan ataskiya almuktasaba waa taskiyada qofku uu shaqaysto ama la kasbado oo ilaahay qur-aanku leey waman tazakaa fainamaa yatazakaa linafsih wa ila allahi almasiir fi suurati faatir waman tazakaa fainamaa yatazakaa linafsih ninkii isطahira ee khayrka isku barbaariya ee naftiisa rabeeya fainamaa yatazakaa linafsihi baa ilaahay leeyahy sideedaba waxay dhahdaan cilmigu waa laba jahad cilmi nadariya ama si kale haddaanu dhahno information ah ama macluumaad ah ama ogaal ah inaad wax garatid wax ogaatid iyo aqoon dadka lagu tababaro oo u baahan farsamo iyo xeelad iyo tababar iyo training u baahan iyo tadriib taskiyadu bay yidhahdaan waa baabka labaad waa baabkan fanka lagu tilmaamo fi luga alcarabiya alcilmu walfanni bay yidhahdaan fanku maaha kan heesaa kama warramaya soomaalida fanka u taqaano waa alfanni alcarabi luga alcarabiya waa fanka loo yaqaano marka waa qofka bini aadamka oo naftiisa la tacaala sidii ay u qumanaan lahayd inta badanna kama maarmo qofku inuu cid rabayso helo haddaba arrintani inay muhim tahay waxaa tilmaamaya qur-aanka meel qura ayay kaga jirtaa ilaahay oo 11 jeer dhaaranaya rabu samaawaati walard oo hadduu wax inoo sheego qowluhu sidq warkiisu dhab yahay ayaa 11 jeer dhaartay suu masalada tan u tilmaamo suuradda aynu wada akhrino waashamsi waduxaaha waalqamari idaa talaaha waalnahaari idaa jallaaha walleyli idaa yaghshaaha waassamaa'i wamaa banaaha waalardi wamaa taxaaha wanafsin wamaa sawaaha faalhamaha fujuuraha wataqwaaha intaas baa ilaahay kusoo dhaartay ay mufasiriinta badh waxay tilmaamayaan waawiyada meesha ku jiro dham inay waawulqasam yihiin haddaad doontana waawga labaad mid kasta waawulcataf waad ka dhigi kartaa calaa kullin ilaahay intuu sidaa u dhaartay buu wuxuu tilmaamay qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha waxaa liibaanay baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala waxaa liibaanay man zakaaha ay man taharaha wanaqaaha wahadabaha wa aslaxaha waxaa liibaanay baa ilaahay leeyahy qofka naftiisa daahir yeelay wanaajiyey kobciyey islaamnimada ku dhaqay qad aflaxa man tazakaa wadakara sma rabbihi fasalla waqad khaaba man dasaaha baa ilaahay yihi kii aasay ee xumaha iyo dhaqan xumada ku aasay ee xaqiray naftiisii waayo nafta bini aadamkaahi marna way kortaa oo mar kastoo la dhilo ereyga dhilitaanka soo ma taqaanin usha markaad goosato xoolaha intaanaad ku kaxayn waa la dhilaa wixii qodax iyo kurtina laga dhilaa si ay dee neefka wax kaaga yeelin nafta bini aadamkii qodxayska leeday waxay jeceshay in la ammaano waxay jeceshay mararka qaarkood inay muuqato waxay jeceshay xoola inay hesho waxay jeceshay wax badan waxaasi wuxuu u baahan yahay qofku inuu la tacaalo oo dhilo oo ka fiiqo ilaa ay naf quman ka noqonayso o ilaahay sharcigiisa ku qumanaanayso haddii la dhili waayo xumaha kale uga dhacda ilaa ilaahay qur-aanka ku tilmaamayo in hum ilaa kalancaami bal hum adallu sabiila
ina shara dawaabi cinda allahi sumu lbukmu. ilahay wuxuu ku tilmaamayaa waxa dhulka kor socdaba waxa u shar badan mushrikiinta, waayo xumahay xagga kale uga dhaceen. arrinkani muhiimadiisu waxay culammadu yidhahdaan waa wadiifatu alambiyaai wa rubcu risaala bay ku tilmaamaan. taskiyadu waa shaqada nebiyada loo soo diray. ilaahay nebiyada waxyaabuu usoo diray taskiya ka mid ah. sida awgeed ayuu nebi muuse fircoon markuu yimi muxuu ku lahaa, faqul hal laka ilaa an tazakkaa wa ahdiyaka ilaa rabbika fatakhsha. waxa uu ugu yeedhayay fircoon waxay ahayd taskiyat اlanfus, naftiisa inuu tahiro oo najaasiya xumo iyo waxa kanuu ka tahiro. waxaana loo tilmaamay waman yaأtihi muؤmina qad camila الصaalixaati faulaa'ika lahum الdarajaat اlculaa jannaatu cadnin tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha wadalika jazaau man tazakaa baa ilaahay. sidaa ogeed ayuha alaxiba, culimmadu waxay dhahan waa rubci risaala. nabiga calayhi salaatu wasalaam risaaladii loo soo dhiibay 4 meelood marka loo qaybiyo meelba ah bay leeyihin mas'alada tan. oo ilaahay markuu u manno sheeganayay muslimiinta 3 aayadood ee loogu manno sheeganayo iyo aayadda nebi ibraahim uu ku ducaynayo, 4 aayadood ee qur-aankii waxay ku soo arooreen mas'alada tani inay tahay rubcu risaala. kama arsalnaa fiikum rasuula minkum yatluu calaykum aayaatina wayuzakiikum wayucallimukum alkitaaba walxikma wayucallimukum maa lam takunuu taclamuun huwa aladii bacata fi lummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaati wayuzakiihim. ambiyada 4 shay baa loo soo diraa. ka koowaad waxa weeyaan talaawat lkitaab, qur-aanka inuu dadka ku dul akriyo. qur-aanka inuu ku dul akriyo macnaheedu waa maxay? waa inuu xujada ku oogo. dadka badh baa ilaahay ogiyey aan rabbiba rumayn doonin, fii cilmi lgeyb ilaahay ogiyey, biikhtiyaarihim ku diiday inay ilaahay rumeeyaan. oo hadday sidaaba ahaayeen maxay risaalada kuwan u tiraysaa? waxay u tiraysaa aakhiro inaanu cudurdaar helin in xujada lagu oogo. marka ambiyadu koow waxay u yimaadaan dadka inay xujada ku ogaan, macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun. ilahay wuxuu leeyay cidna ma cadaabno xataa nabcatha rasuul, inaanu soo dira mooyaane. waxaa loo soo dirayna lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul. marka shaqada koowaad ee ambiyadu ay qabtaan waxa weeyaan dadka inay xujada ku dul ogaan. xujaduna qur-aankay ku dhantay. qofku dadka badh baa is ihahdaa dadka haddaad rabto inaad hanuunse falsafad u akriyo, saynis u sheegiyo, kan u sheeg, waxba kama jira waxaa. ilaahay xujadiisu kitaabkiisa ku taalla. hadday daliil caqliya tahay, mid maangala tahay, mid cilmiya tahay, mid kasta tahay, qur-aanka sheegaya. xujo waxa ugu filan qofka markaa qur-aanka in la fahamsiiyo, qur-aanka inuu fahmo ayaa xujo ugu filan. mid cad iyo mid madow iyo mid professor iyo mid miskiina iyo mid caalima iyo mid reer baadiya waa isku mid. cinda allahi halkay ku jirtaa. marka shayga koowaad ee rususha loo soo diray waa yatluu calaykum aayaatina, inuu idinku dul akriyo aayaadka yaga oo inuu xujada dhammaantiin idinku oogo. dadku markaa 2 fariiq bay noqon doonaan, kuwa ilaahay raacay iyo kuwa ilaahay diiday. kuwa ilaahay diiday iyaga xujadaasaa lagu wadaya. kuwa ilaahay raacay markaasee aqbalay qadiya thaaniya ugu muhiimsane markaa uu u baahan yahay waa maxay? waa wayuzakiikum wayuzakiihim. waa taskiya, waa masaladan aynu ka warramayno. waa in qofkan la tahiro oo xumaha laga tahiro. oo xumaha laga tahiraya waxaa ugu horeeya ilaahay keyrkiioo la caabudo, ilaahay keyrkiioo la baryo, ilaahay keyrkiioo la isu dhul dhigo. ra'su lkhatii'a waa kufr, dabeetana macaasida waaweyn, kadibna dhaqan xumada isaga iyo bini aadamka dhex mari karta, kadibna waxa allaaliya wixii qofka bini aadamka naqiisa ku ah, wixii xumo ku ah oo dhan waa taskiya. mas'alada 4 iyo 3 markaa iyagu waa tacliim alkitaabi walxikma. qofka in la baro aqoon
in la baro ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam. iyagu waa cilmi. in badan oo dhallinyarada ka midi waxaad moodaa in ahmiyadda la saaro tacliim alkitaabi waalxikma. haddaad aqoon barato asaanada rabaysnayn, jafaafnimo iyo dhaqan xumo kaa badanaysa, iyo dadka inaad diintaba kasii fogeysa inaad ugu yeedho daaya. marka asalka waxaa ah caamo iyo culamada dadku inay musakiin noqdaan. dadkao dhan waxaa saarani laba ku ah bacda alxuja, waa in dadka la tahiro, naftooda iyo quluubtooda la tahiro, ay noqdaan dad mutawaadiciina oo ilaahay subxaanahu watacaala cabsidiisa ku beeran tahay, oo aan khalqiga iska weyneyneynin, oo aan adduun jacayl u noolayn, oo aakhiro u muuqato, oo wixii laga rabay oo dhami. intaa kadib baa waxaa lagu tilmaamay culamadu yidhaha wayucallimuhum alkitaaba waalxikma, in la baro xikmada oo sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ah iyo kitaabka alle subxaanahu watacaala. idan waxay idhahdaan afartii shay ee risaaladu ka koobnayd ee ilaahay ugu manno sheegtay, manno sheegadku yacni ugu gallad sheegtay, ilaahay nicmadu dadka siiyey uu ku tilmaamay rubuceed. afarta mid ahaani waa maxay? waa masalati taskiya. casriyada dambe waxaa yar dad murabbiina oo dadka taskiyeeyaa yar. macluumaadku waa badan yihin, macluumaadku waa badan yihin. cilmu suluuk dhigistiisa iyo barashadiisa iyo ku dhaqankiisa waqtiyada dambe aada buu u yari. laga yaabaa culumta kale, fiqi matalan markaad barato, nacam wixii wax kaaga asaxayeen amay kaaga burayeen maad baranaysaa, wixii xalaal iyo xaaraan maad kala baranaysaa. laakiin matalan salaadu waxaana way ku asaxdaa, waxaana way ku burtaa. laakiin inay dhaqankaaga doorisaa waa masalo ka baxsan burinta iyo asaxidda, waa masalo ka baxsan. inaad ku khushuucdaa waa masalo ka baxsan. inay salaadii rabbi rabay noqoto ee maqsuudkeedu ahaa tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar inay gaadhaan waa masalo u baahan rabaayad kale. walidaalik culamadii waaweyneed hore markay wax ka baranayaan umay iman jirin inay macluumaad ka qaataan, ee waxa uga muhiimsanaa samtiga iyo dhaqanka iyo zuhdiga iyo suluuka inay ka bartaan baa ka muhiimsanayd inay ka qaataan macluumaad iyo information. yani jaamacada la tago information baa laga soo hela, waa macluuma, laakiin transformation lagama helo, isbeddel ma sameeyaan. qofkana waxaa ka muhiimsan inuu macluumo helo inuu isbeddel samayn karo. macluumadu markaasay wax taraysaa, marka macluumo kasta dhaqan isu beddelayso ayay qiimo leedahay. laakiin hadday noqoto waxaad madaxa ku gurayso un, laakiin hebel un aad iska tahay, haddaad 10 kitaab dhigato iyo haddaad 1 kitaab dhigataba haddaad hebel tahay oon waxba iska kaa gadiinaynin, noloshaaduna isbeddel samaynaynin, macluumaadku xujay kugu yihiin, wax tarba kuma aha, waa xujatun calayk. aakhira aday dhib kugu haysaa dheeraadka inaad baratay ee dhaqanka loo bedeli waayo. sidaa ogeed baa ducaadii nebi maxamed waxaa ka mid ah calayhi salaatu wasalaam, xadiidkii saxiix muslim ku yaalay jus ka mid aynu soo qaadiye, allahuma aati nafsi taqwaaha wazakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wa mawlaha. nebi maxamed baa ilaahay bariyo muxuu weydiisanayaa, allahuma aati nafsi taqwaaha, ilow naftayda taqwadeeda iyo dhowrsanideeda iyo alla kacabsigeeda sii. ilow adaan ku weydiisanaynaa inaad jidkaana marisa buu leeyahy. zakiha, ilow tahir oo khayrka ku barbaariyo, ku koriyo, ku kobci. anta khayru man zakaaha, cid daahir yeesho oo nadiifiso oo kobciso oo korisa, ilow adaa u khayr badan. anta waliyuha wa mawlaaha. idan ayuha alaxiba, matlabkan ah in bini aadamku ama qofka muslimka ahi siiba uu ku dadaalo diintiisu siday dhaqan isugu bedeli lahayd, aanay u noqon lahayn aqoon madaxa kaga jirta ee aqoon qalbiga ku jirta ay u noqon lahayd. inay caqliga gasho iyo inay qalbiga gashaa waa kala laba. qalbiga hadday gasho waxbay bedeshaa, caqligasi hadday gasho
dee waa macluumaatun waa waxaad ogaatay. ilaahayna qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya inuu isagu bixiyo mas'alada tan طريق kaloo laga raadiya inaanu jirin. walowlaa fadlu اllahi calaykum waraxmatuh ma zakaa minkum min axadi abada walakina allaha yuzaki man yashaa. ilahay wuxuu leeyahy haddii lala yahay ilaahay dheeraadkiisa iyo naxariistiisa qofba idinkama daahireen baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala, laakiin rabbaa daahiriyo taskiyeeya oo zakaa u sameeya ciddii uu isagu doono. sidaa awgeed ayuha alaxiba ayaynu waxaynu tilmaamnay qur-aanka aayaadka soo degay ee ka warramaya shaqadanka ambiyadu afartaa shay inay yihiin kuwa ugu muhiimsan ay ka mid tahay. taskiyadu markay xad gaadho way isku macnay noqdaan, xataa taqwada la tilmaamo oo ilaahay waa ka qur-aanka ku leh wasayujannabuha alatqa aladi yu'tii maalahu yatazakaa. waxaa naartaa wax gubta laga fogeynaya maxay? alatqa, kuwa ilaahay u cabsi badan leh. cabsida ku sugan waa kuwee? waa kuwa xoolahooda bixinaya iyagoo taskiyatu nafsi raadinaya, tathiiru nafs. haddaynu intaa kusoo dhaafno taskiyadii anwaacdeeda iyo ahmiyaddeeda iyo inay rubcu risaala tahay iyo rususha shaqadooda inay tahay, wadiifatu lambiyaa inay tahay, waxaynu ku gebagabayneynaa dariiqa waxaan loo maraana ma aha dariiq ka baxsan waxaa nusuustu sheegayso. yacni dariiqii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mid aan ahayn dadka barh baa tijaabiya, laakiin qiimo badan ma sameynayso. waa laga yaabaa techniqueska farsamooyinka qaarkood qad tusaaciduk walaa tuzakiik, inay markaad waxaan sameynayso wax ku taarto, laakiin taskiye ma helaysid. maadaama ilaahay leeya walowlaa fadlu llahi calaykum waraxmatuhu ma zakaa minkum min axadi abada walakina allaha yuzaki man yashaa wallahu samiicu caliim. waxaan leenahay taskiyadu waxay ka bilaabantaa tawxiidka, oo ciddii tawxiid weyda shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah cidda weydaa ma taskiyoobayso. taskiyada aynu rabnay shareecadu ka warramayso kow waxaa asal waa tawxiidka inaad xaqiijiso, oo tawxiidka laftiisa ayaa badhna yahay macluumaad madaxa gala, badhna uu yahay tawxiid camaliya. tawxiidka macluumaadka madaxa gala waa inaad garato ilaahay inuu keli yahay, asmaa wa sifaat fiican leeyahay, isagu dunida tan maamulo, keligii la baryo, aakhiro inay jirto, janno iyo naar inay jiraan, rasul ilaahay inuu soo diray, kutub inay jirto. waa masaa'il cilmiya waa inaad garataa. laakiin tawxiidku goormuu macno sameynaya? markay waxaasi dhaqankaaga ka muuqdaan. muraaqabada tani ilaahay markaad rumaysantay in alla ku arkayo, asmaadii aanay ahayn asmaa kalaamiyo cilmulkalaamku si uga warramayo kalunaad uga marranto oo muran u dhalisa, laakiin ay noqoto asmaa iyo sifaat noloshaada macno ku beera. ilaahay waa caliim markaad barato inuu calimiyey, inuu khabiiriyey, waxay keensanaysaa inaad yaqiinsato wixiisu inay saxyiin, ku kalsoonaatid, shaki kusoo gelin. markaad barato ilaahay inuu xaafid yahay, raqiibiyey, waxaad ku kalsoonanaysaa inaad tala saarato isaga. markaad rumaysato inuu qawiyun casiiz yahay, waxaad rumaysanaanaysaa isagu inaad ku tiirsato, makhluuqu inaanay waxba ahayn. idan tawxiidkii aada rumaysnayd baa wuxuu isu bedelayaa sulugaaga inuu wax ka bedelo, dhaqan inuu noqdo, inaanu noqonin macluumaad murana unaad muctasila kan tiri iyo jahmiya kan tiri aanad ku murminune, inuu isu bedelo wax dhaqankaaga wax ka bedeli kara oo iimaan kordhin kara. markaasuu noqonaya tawxiidkaagii tawxiid midhihii la rabay dhalinayay. waxa keena baynu leenahay taskiyada tani waa cibaadaadka dhabta ah, waa cibaadaadka sidoodii loola yimaado.
إلهي مقاصد عبادات كم حكوت المامية كو مقاصد ودوا كم إن هذا أجر كهشة وكم إن الذمة هذا برية شان آخر الوقوع أفسد مثلا سلام بتكتي هدي واحد مبطلات أنا تلاقي من السيد اللي يقولوا تكون هتسجل تكتي إجزاء شيء ينفق هذا يكون عظم والغاية بآخرين الوقوع أفسد إن سلام دي ما تكني لكن واحد كلا صورة قال إن هذا أشر بني هرينا أصورة قال كويل لها عشورها بيهلي أنا ما تصعها ما حاجة وهو صيصان تمر هدي 10% عدي هلي سوي 0% عشان أنا وسك صورة قال ما 1% ما 3% إذا صلاة دين وده تكني قفنا إنه 80% 70% 90% هلا كانوا ليش يسوي حبي كبدليسا والله هو سلوكي سيدا كيسي بدليسا تسكيده إنه شيء النبي يدو نقانيسا قفنا وحلقية ما هنا يوم كرد عضايا وصلاة دي آخرا ما تكنينا الله قفصنين لكن إننا نلشي سنات كي لو باهنا كل هاي that's why إنه أركي إنه تتسفلوا الكنا كتيرا توقنا تتسفلوا الكتيرا خيامة بدن تتسفلوا الكتيرا بين شيء تتسفلوا الكتيرا وعبادة يوحي للربيع أنا يمرد عليه أنا تسفلوا الكنا كتيرتو وحي بلشاد كودي بتيه وحي الدولة كودي بتيه وحي حاجة لا قاعد ببعض سمارسه تسفلوا الكنا كتيرتو وهذا ندت كبوفتي ودول كبوفتي وما نويد سفلوا الكنا كتيرتو والرب الشيء ويده وحسوي دارستو خيامسي سفلوا الكنا كتيرتو وحرد عن وحويا تسكية النفس بمقام معلومات كأذكرنا إنسان ومعرفة ديني سمي بدلنتي للربي ما ينقولين نولش وحاجة بدله سأوجد قف كم بني آدم كالله هذا وح ملك هاجن معها ووح أمر ربوبة أو كرة أو قبعة أو حاجة ملك أو صعدة إلى حد إيجابي كران دك عادي ما ها أنبياء الرسول كما ورميه قال النبي يقول هذا إلهي كل أرتان إلهي دارت ذو فلنيا والله ساسي نقول سهدو إلى هذا إلهي وكرد يسدي وكل أرتين نقطة وما هي الله كعب سي يم هي سلوك سي الدقة كيسي بحد كان جالسي بني آدم كقارن حاجة كلا يصعد آدم لماذا ما هو يخدع حيوان كاين نقضان بل هو يسير بل هم ضل إن شر الدواب عند الله الذين كفروا كإلهي ليه وشر الدواب إلهي وحدك كرس عضائك وشر بدل ولقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم ثم رددناه لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم كإلهي حنوعسي ثم رددناه أسفل سافلين أسفل السافلين كم معنوي كمادي هيدا بي تتكبر بقى أسفل السافلين كم معنوي قاو النقضة أنت إلهي سفي عنه أبوري لكن نفتي سمك الربوب ويدين نقضي بحر بني آدم كعونه أضافي حيوان مدى درجة دي وإلهي وقرآن قلت المامية ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم ضلوا السبيل بل هم ضل إلهي وحكوت المام يقوك جهنم كوة قلية الجن ينسك كمدي وقار ما لها بني آدم كو انفورميشن وركا كو هلوردن أي حرنطي وحي خير ما يشكك قليلا وحرنطي قلبي يسوى ما فهمه إيش يسوى ناقا ما أركته نكتيسو خير كما مقاشو انت بولي لكن شربك شقيميها انت بولي عقلي قلبي بولي شربك فوقيه دقيه ان بولي شربك فوقيه كواس إلهي وحكوت المامي أولئك كالأنعام بل هم ضلوا السبيل بل هم ضل كواس هو حوله أنا وكلي تنبا إلهي إليه سبحانه وتعالى في ليا وقت سلاد وقعد لكن كلمة ديدوا كلمة سكاكوبا حكوا كوبا طاي
bini aadamku xagga sarana wuu u kori karaa oo zakaadkaynu sheegaynay khud min amwaalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakiihim tutahiruhum min daa'i lbukli washux iyo wixii la nooca xumaay ka tahiraysa wa tuzakiihim kor bay yeelaysaa tuslixuhum way hagaajinaysaa dad acmaashoodoo dhabe markaa ay taskiya u yihiin oo ay nadiifinayso iyo dad acmaashoodoo dhami tadsiya ay u yihiin ay aasayso xabaalayso qofka muslimkaana waxaynu leenahay bacda shahaada waxa laga rabaa waa inuu naftiisa rabeeyo inuu naftan rabeeyaana waktay qaadataa bini aadamku maaha wax inta wax loo sheego dabeetana saasuu iska yeela xataa ma aha bini aadamku wax caqliga si toosa u adeegsada dadka baad maqlaysa kule caqlaad leena su-aal quraanku weydiiyo bini aadamka dunida ku nool wax sigaarku uu fiican leeyahay inaad maqashay diin kama warramayo basharka caadiga iyo dadka iyo aqoonta iyo waxa bini aadamku uu leeyahay wax la sigaar baa fiican miyaad maqashay kacbayana ku dhaho wuxuu ka odhanaya wuu xun yihi oo haddana caqligaaga adigu mid waalabtay markaa maxaad u cabaysaa haddaad ogtay inuu xun yahay asaad caqli qabto maxaad u cabaysaa ma waalid caqligaaga waad qabtaa yacni waanu raboobin go-aan qaadashadiisii baa xumaatay siduu naftan u rabayn lah markaa macluumo kastoo aada haysataa macnaheedu maaha inay dhaqankaaga ka muuqanayso inaad macluumada garanaysaa shayga inaad garanaysa macnaheedu ma aha inay dhaqankaaga ka mid noqonayso dhaqankaagu wuxuu u baahan yahay inaad israbayso wuxuu u baahan yahay dadka khayrka qaba inaad ku xidhanto wuxuu u baahan yahay ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam inaad barato wuxuu u baahan yahay siiradii nebi maxamed inaad barato wuxuu u baahan yahay siyaru saalixiina wa taraajum alculamaa maxaa had iyo goor taraajimta culamada loo qoraa waxaa loo qoraa dhaqankoodan in lagu daydo manaaqib alculamaa iyo taraajim alculamaa kutubtan waxaa ka warramaysa waxaa loo qoray waxa weeyaan in sabtigoodii la barto hadyigoodiiyo si ay u dhaqmayaan in la barto si loogu dhaqmo waxaan leenahay markaa tawxiidku taskiyuu sameeyaa cibaadaadku taskiyay samaysaa adkaarta la samaynaya taskiyay sameeyaan waxaan oo dhan waa waxa nafta rabeeya laakiin waa marka aan macluuma ahaan loo qaadanin ee loo qaato dhaqan ahaan la ysku dayo in lagu raboobo naftu marka hore weecadkeedu wuu tiro badanayaa laakiin waxay u baahan tahay wakti in lala daba taagnaado culamada psychologyga waxay dhahdaan wax kastoo aada muddo musaawalayso muddo aada wadaaba marka dambe caadaadku ku biira caadadaada caadiga aanad dareen caadaadkaaga ma dareentid matalan iminka ina casarkii baxdaan oo shaah soo cabaan caada idiin noqotay kama fekertaan horta maxay ka faa'iideen inay maqaaxida tagno koob shaah ka dalbano qofna ma xisaabiyo ma isweydiisaan oo maqaaxidan inta la tago koobka shaah mad gurigaaga ku cabtay koob shaah hore duyi guryihiinii baa shaah yaalli waa baxaysaa maqa caada idinka noqotay inaad casarkii intaad xidhxidhato halkaasa tagto koob shaah ka cabto adigoo aan fakerin baad samaynaysaa dhaqamadoo dhan baa caado loo bedeli karaa markaa dhaqan kastoo aad rabto haddaad muddo nafta ku rabayso marka dambe caado noqonaya automatically aada u samayso haddaan ka fakerin aada samayso marka waxaa laga yaabaa carruurta yaryar inaynu dhahno markaad cunada cunayso bismillah leh laakiin adigaaga weyne inaad iska ilowdo mar kasta waayo waanu ugu tirayn garay laakiin kaa yar haddaad usbuuc ku wado marka dambe dhaqankiisa ku biiraysa cunno marku kor u qaado bismillah bu iska odhanaya marka way ka baxday macluumo oo waxay gaadhay maxay inay caadaadkiisa ku biirto marka waxaynu u baahanay macluumaadkan madaxa ka buuxa iyo wacdigan tirada badanna laydiin sheegaya habeen iyo maalinba inuu macluumaad aanu noqonin iyo war la ogaadaye inuu dhaqan isu bedelo inuu isu bedelaana wuxuu u baahan yahay nafta inaad muddo ku rabayso intay kala qabsanayso markay la qabsato wax fudud buu iska noqonayaa oo ay si caadiya ugu dhaqanto